Golaha MCA-yada ayaa maanta albaabada u laabay aqalka baarlamaanka ismaamulka Mandera. Golaha MCA-yada ismaamulka Mandera ayaa cabasho ka muujiyeen dowladda uu hogaaminayo madaxweynaha William Ruto oo qiimo dhimis ku sameeyay mushaaraadkii ay qaadan jireen. MCA-yada ayaa u warramay sida tan. meeshan waxaan iskugu imaadnay inaan maanta u sheegno wadanka iyo dadweynaha soo doorteen inaan xirnay baarlamaanka Mandera County Assembly taas oo ka dambeysay wada hadal fara badan iyo tashi badan oo la yeelanay baarlamaanada kale oo dhigayna ee Kenya ka jira 47 county waxay iskugu tageen Nairobi dadka la soo doorteen dhibaatada haysatay ka hadleen dhibaatada haysato waxa kamid ah baarlamaankan waxaas la xil yahay midka nationalka oo dawladda sare waajibaadka ka saaran ayaa kan saaran inaas dawladda ilaaliyo executive kaas ilaaliyo dadweynaha ka wakiil lahaada sharcina as dejiye saddexdan qodob meel u taala saddexda qodob resource la'aan dhaqaale la'aan waa la wareegay sida ayreed Kenyanku ay isu tageen waxa la tashti oo la dhahay baarlamaankan waa in la aqoonsado sida baarlamaanka nationalka oo dawladda kor camal sidaas awoodeed annaga ma waarideyn karna nin MCA oo 86 kun mushaar u qaadanaya dhaqaale kale aan haysanin nin governor ama wasiir oo milyan lacag ay soo maraysa bishii kama noqon kara oversight kuma samayn kara ma waarideyn kara ma xisaabin kara maxaa waa nin vulnerable waa nin u nugul waay sida awoodeed dawladda waxaan u sheegaynaa in ay dhaqaalaha looga tiragalay ama lagu qaban karo shaqada ay noo yeeshi inay ku bixiso baarlamaanada waxa kale intaas ku daraya waxa jiri oo shantii hore jiri waxa jiri dawladda hore 10kii hore devolution 15 waaya shantan labada ka horeyso waxa jiri alliances ay MCS ka qaataan jiri mileage jiri fadhiyaalka lacag gudno oo lagu qaato jiri wixii oo dhan qolada SRC liira mushaaraadka u xil saaran way yarigooyeen madaxweynaha wadanka ugu sareeyay ilaa idaaradaha ay qoseen waxa uu sheegaynaa in la soo celiyo dhaqaalaha iidahay si aan ku noqono dad active oo dadweynaha wakiilshan kara ma wakiilshan karna haddii governor iyo dawladdiisa iyo dadka la shaqeeya ay dhulka tagi karaan annagana aan safar gali karin dhaqaalaha awgiis ma wakiilashan karna shacabka marka saan shacabka ku wakiilashayna oo dawladda check and balance ku sameeyna ilaa waa in la helo dhaqaale ku filan farintaas aan farayaa dadweynaha ha maqleen assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaydu waa Maxamed Ibrahim oo loo garanayo Maxamed Shukri MCA-ga laga soo doortay wardka Guticha baarlamaankana majority whip-ka maanta assemblyga Mandera County Assembly waan xirnay sababtaan u xirnay waxa waaye arrimo la xiriira dhibaato MCS ka haysata oo rabna dadweynaha reer Mandera khaasatan dadka soo doorteen inay ogaadaan aan rabno waxa waaye devolution termka saddexaad ayaa dad la doortay dawladda awal MCS mushaaraad fiican ay siin jirtay mushaaraadka ayaga waa la gooy MCA hadda 86 kun ayaa la siiyaa oo canshuur ay dawladda 30% u goosanaysa iyadoo jira culayski abaar baa la soo maray dad baa isbitaal ku jiraan MCA-ga waa qafka kaliix oo dadweynaha ay maalin kasta u imaadi karaan dhibaatadooda maaragtay 24 hours ay maaragtay MCS waa halka qaf oo la joogo dadka siyaasiyiinta la soo doortay marka lacagtaas MCA-na waxba uma qaban karta dadka soo doortayna waxba uma qaban karta marka sababtaas darteed arrimo badan oo sidii muhashamayal kale ay ka dhawaajiyeen sidii developmentada looga tirigalay wardka MCA lacag development oo dadweynaha siinay oo sharciga Kenya uu ogol yahay ma jirto waxa jirta wadankan dadka guddiga mushaaraadka bixiya lacagta MCS ka qaadanayeen kulli way jareen sida darteed maciishada ama nolosha qafka MCA-ga waxay noqotay dib zaid dadweynaha ku soo doortay waxay ka sugayeen inaad wax u qabatid dadweynaha ku soo doortay waxay ka sugayeen inaad isbitaal ka bixisid gargarka lagu soo saaray oo maaragtay familka markay fadhiistaan gargarka u horeeya qafka MCA-ga la saaraya waxa kulli waxas MCA bixin kara maahin sababtana waxa waaye MCA mushaar ma qaadanaya dadweynaha Soomaalida ama dadka luqadda fahmayeen kulli waxaan u sheegaynaa inay caqabad ay haysato MCS oo laga sugaynin inay development ay dad u qabtaan inay jeebkooda lacag dadka siiyaan
inay school fees ay cunug ka bixiyaan, inay qof isbitaal ka bixiyaan, inay qof la xiri ay lacag ku bixiyaan oo jeel ka soo deeyaan, inaan laga sugaynin inay dadweynaha nala fahmaan ayaan rabnaa. dhibaatada MCAs-ka haysata dadweynaha ay fahmaan. baarlamaankan looma xirin faaje iyo qof ku xumay looma xirin, waxaa loo xiri dowladda Kenya dhibaatada MCAs-ka haysata inay fahanto. 47 county MCAs-ka ayaa fadhiistay, waxaa lagu heshiiyey KICC Nairobi la fadhiistay taariikh 3 bishan. waxaa lagu heshiiyey in baarlamaanka oo hoose oo baarlamaaninta 47 county haddii dowladda Kenya 2 usbuuc gudahood ay MCAs-ka arrintooda wax ka bedeli weyso in la xiraa lagu heshiiyey. 2 usbuuc hadda 4 usbuuc laga marhayaa, sida darteed ayaan baarlamaanka u xirnay. dadkii na soo doorteen oo zaid aan xushmad badan u qabna oo jecelnahay inay warkaas ogaadaan ayaan rabnaa. MCA asaga gaajoon qofka soo doorto waxba uma qaban kara. midda muhiimkana oo dadka inay nala fahmaan aan rabna taas way. aniga guutijaal iga soo doortay, marka labaad la soo doortay, dadweynaha waxay iga sugayeen development ay iga sugayeen. lacagan development ku qabto ma haysti, jeebkayda inay wax ka helaan oo cunug iskuul laga soo fiijiyay aan lacag siiya iga sugayeen, ma siin kari. qofka isbitaal jeef inaan lacag siiya iga sugaya ma siin kari. maxaa yeelay dowladda Kenya mashaariic ma basiisaba. 86,000 30,000 camal waxay noqonaysaa canshuur ay noqonaysaa. kaarka NHIF lacag uu goosan, xisbiga ku maartay aas ku soo gashay lacag uu ka rabaa. marka aan mashaariic waxaan u qaataa marka bisha ay dhamaato 30,000 ilmahayda hataa kuma filna. dad kale waxaan u qabtay iska dhaaf. marka dhibaatada jirta waa taas. dadweynaha reer Mandera ama Soomaalida reer Northeastern MCAs-ka Wajeer iyo Mandera ee Garissa anaga waa xirnay. waxaan ka imaanaa meelo dheer. qafaa Gadeer laga soo doortay, qafaa Kutulow laga soo doortay, qafaa Guutij laga soo doortay, qafaa Asxaab laga soo doortay, qafaa Lafey laga soo doortay. dadka ayaga hay waxay ka sugayeen inaad wax u qabatid, laakiin waxaas u qaban karta ma laha. maxaa yeelay MCA waxaa lagu celi kansalowda zamaani camal oo 21 dukun qaadanay ayaa lagu celi. sidaas darteed marka wax laga qaban kara meesha ma jirto. salaamu calaykum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. reer Mandera waad salaaman tihiin. magacayga waa Aadan Maxamed Cali oo ku magac dheer Haro. Nairobi ward ayaa laga soo doortay, waad garanaysaan. maanta aqalka waan soo xirnay. sababtaan u xirnay waxay tahay waxaa jirta lacagaha oo la siin jiray ward fund wax la dhahaa oo MCAs la siin jiray ayaa jirtay. lacagihii waana laga jaray. mishaarkii oo 100 iyo wax la jiraan la qaadan jireen oo laga soo jaray 86,000 ayaan qaadanaa. waxyaalo badan oo ahanada maartay inta ka sheegi karin ayaa jirta. marka waxaan u xirnay guriga in aan maartay 4 iyo 7 county oo maanta la soo wada xiray aan anagana maartay solidarity aan la noqonay aan la soo xirnay. maanta ayaa u dambaysa meelo badan ayaa la soo xiray. marka waxaan rabnaa in aad nala ogaataan aqalka inuu xiran yahay. maanta la soo xiray, maanta la soo gabagabeeyey arrimihiisi. waxaan rabnaa in governorgana nala maartay arrimaheena la socdo oo arrimahan maartay county-yaasha kala governayaashooda ay la socdaan oo wax walba ay u sheegaan. annagana marka waxaan rabnaa in governayeena inuu nala socdo arrimahan oon hadda inta ka sheegnay oon hadda inta ka wada dhawaajinay aan rabnaa inuu nala socdo. marka waxaan rabnaa aqalka waa soo xirnay. maadaama aqalkaan soo xirnay waxaad ogtihiin mar dhow maalmihii oo maartay fataha u dhacay oo roob badan ay dhacayaan. khasaaro badanaa soo gaartay siiba reer Nairobi. marka allagan lacag uma hayn. musqulo badanaa go'day, maartay guryaal badan ayaa fatahay oo meesha ka go'ay. marka waxyaalo badan ayaa la rabaa maartay dadka in lagu caawiyo. annagana lacag waxaan gacanteena waxba kuma jiraan. marka waxaan rabnaa in maartay dowladda national government nala ogaadaan arrintan. waxaan aqalka u xirnay 47 county loo soo xiray inay tahay dhaqaale darro inay tahay. marka aniga intaas aan ugu baxay. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.